بسم الله الرحمن الرحيم يا لباتنka bisha January 2026 ku soo dhawaada qaybta labaad ee wararkeena caawa oo xiisa gooniye leh qodobada aad caawa qaybtani ku daawan doontana waxa ka mid noqon doona Israa'iil ayaa ku dhawaaqday in ciidamadeeda ay keenayso Somaliland maanta shacabka Somaliland indhaha ayay fureen qorshaha socda maxay yihiin ciidamada la keenayo xagee la geyn doonaa maxay qaabilsanaan doonaan cabsida iyo walwalka oo durbaba laga dareemayo qaybo kamid ah Somaliland iyadoo dibadbaxyo waaweyn sidoo kale aad ku maqli doonto oo ka socda magaalada caasimadda waa gobolka Togdheer ee Burco rasaas la huuyay dadkii dibadbaxayay waxa ay ku dhawaaqayeen ma doonayno ciidan Israa'iiliyiin iyo Israa'iil inay dhulkeena soo gasho iyadoo sidoo kale halkaasi la sheegay in dad badan oo boqolaal xabsiyada lagu guray wararkii ugu dambeeyay goobjooge aan wax ka weydiiyay xaaladaasi ayaan ku soo gudbin doonaa wasiir ka tirsan Somaliland oo sidoo kale aaday dhinaca dawladda deegaanka Soomaalida ayaa loo diiday in ay ka dhoofaan Jigjiga wararkii ugu dambeeyay Mustafa Maxamed Umar oo u soo jeestay Somaliland haatan xiriirkii gobolka Minjabuuti ilaa iyo Jigjiga waa ay lumisay xukuumadda Ciro wararkii ugu dambeeyay iyo waliba sida loo kuusay maamulkaasi oo haatan xaaladu ku adag tahay ayaynu fiirin doonaa saatee kacdoonka shacabka ayaa waxa uu noqday midka kaliya ee wax bedeli doona wararkii ugu dambeeyay ee guud ahaan arrimahaasi ku saabsan ayaan caawa ku soo gudbin doonaa warka sidoo kale waxa ka mid noqon doona Mareykanka oo go'aan cad ka soo saaray goordhow kuna dhawaaqay waxa loo yaqaan aqoonsiga Somaliland safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho go'aanka ay ku dhawaaqday xagee buu raacsan yahay ereyada sida ay u adeegsadeen iyo tallaabada Mareykanku qaaday waa mid aan horeyba loo sii filaynin wararka la raaci doona hal like iyo hal subscribe wararka xulka ah oo xaladooda leh ayaan halkan kugu soo gudbiyaa adigana ha nagala bakhaylin like si muuqaalkan si asxaab badan oo wararka ku taxan uu gaaro warar xaqiiqo halkan ku soo gudbina aad baad ma hasantahay aragtida qaybta commentiga channelka soo raac oo subscribe siiso kambalka fursi wararku ay ku soo gaaraan markaan soo galino xiisaha leh halkan aan ku soo gudbino waa qaybta labaad ee wararkeena soo dhawaada mudaharaadyo waaweyn ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ee Somaliland wararkii ugu dambeeyay halkaasi ka imaanay ayaa sheegay in ugu yaraan 300 oo qof oo dhalinyaro u badan xabsiyada lagu guray kuwaasi oo la sheegay in laga qabtay bartamaha magaalada dadka mudaharaadaya ayaa waxa ay diidanayeen sida la sheegay imaanshiyaha Israa'iil ee gobolka sidoo kale waxa ay lulayeen calaamada dalka Falastiin sidoo kale dadka isku soo baxay ayaa waxa ay diidanayeen xukuumadda Ciro in Israa'iil ay soo dejiso magaalada Berbera waa markii ugu horeysay oo guud dadweyne looga horimaado siyaasadda Ciro ee ku aadan imaanshiyaha Israa'iil ee gobolka wararkii ugu dambeeyay halkaasi ka imaanay ayaa sheegaya in rasaas nool lagu furay dadka iyadoo dhaawacyo la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Burco gaaraya ilaa iyo 8 ruux sida wararku ay sheegayaan dhawacyada ayaa ka dhashay xabado la furay iyo waliba isbuurashada markii xabada lagu furay dadku ay isdardareen warar soo baxay ee Burco ka imaanay ayaa sheegaya in casar liiqii maantay ay xaaladu degtay inkastoo guuxu wali uu jiro dadkuna ay isku balansanayaan in maalnimada berrita oo isniina ay isugu soo baxaan banaanada si ay uga hor yimaadaan go'aanka xukuumadda ee imaanshiyaha Israa'iil ee gobolka dadku waxay diidan yihiin in Israa'iil marka hore ay dhuudhuub ku soo gasho meesha ay tagayso isla markaasna hadhow isku ballaariso heeray dadka cagta madaxa ka saarto ugu dambeynna gumaysi dadban iyo mid toosaba ay gelinayso arrintan ayaa ku soo aadaysa aan Israa'iil iyadoo Israa'iil ay ku dhawaaqday in ciidamo iyada dhankeeda ka socda ay keenayso magaalada Berbera halkaas oo la sheegay inay noqon doonto fariisimo ciidamadani ma ahan ciidamo Israa'iiliyiin sax ah balse waa kuwa la tijaabinaya dadka deegaanka si ay uga falceliyaan dadka la keenayo waa dad Carbeed waa Yaasir Abu Shabaabkii la dilay jaajuuska ahaa ee dadka Falastiiniyiinta ku dhex jiray ciidankiisi ayaa waxa la sheegay maadaama Israa'iil ay qasa ka baxayso in la doonayo in la geeyo dhulkaasi caasimadda Somaliland laga dejinayaa kadibna waxa la geenayaa Berbera halkaas oo xiriyo goor horeba ay ka sameysteen Israa'iiliinta warku intaas ku daraya sida majalada Middle East ay sheegayso in dadkani ay yihiin dad dambiilayaal oo Falastiiniyiin isla markaasna markii horeba ku shaqaysanay jaajuusnimo iyo inay Israa'iil u jaajuusaan dadkooda iyo deegaankooda haatan ay go'aansadeen
in bal meesha laga kaxeeyo oo meesha laga wado maadaama Israa'iil ay sheegtay inay ka baxayso Gaza qaybo badan oo kamid ah goobihii ay kula dhuumaalaysanayeen maadaama la banaynayo iyagu fadhi uma yaalo oo sababay u sii joogaan ma jirto oo waxay doonayaan inay iska baxaan oo meeshan ka tagaan marka ugu horeyn waxaa muuqata inay Somaliland noqotay qashin meel qashinka lagu soo tuuro Somaliland qashin ma waa dad markaasi dantooda yaqaan laakiin maamulka ayaa u horseedaya dadkan inay gumoobaan oo qashin noqdaan Yaasir Abu Shabaab oo la ogaa inuu yahay nin laadara oo dadkiisa iyo dalkiisa qiyaanay ayaa ciidankiisa loo soo wadaa berbere iyo meesha la yiraahdo Hargeysa Israa'iil go'aankaas waa qaadatay xukuumadda Somaliland oo ay soo dhaweysay sida majalada Middle East ay sheegayso iyadoo xiganaysa Ramallah TV oo ka soo baxa dhinaca dalka raalli hada Falastiin ayuu ka soo baxay Ramallah TV Maxamuud Cabbaas waayahay qodobkaas taas ka baxayna waan arki doonaa bal falcelinta ama radu ficliga ay bixiyaan dadka caafimaadka qaba ee reer Somaliland inta caadifada dilootay markaasi aqoonsi ku waashay wixii koowaad talaabadii koowaad Israa'iil ay qaaday waxay noqotay in dad dalkoodii iyo deegaankoodii qiyaaneen la idiin soo raro waan arki doonaa bal sidaad uga jawaabtaan iyadan qodobkaasna intaasaan kaga baxnaa qodobka xiga ee warka oo dhinaca oo arrimaha Somaliland arrimaha dibadda warka kan xiga ee qaybta saddexaad ay noqon doona 12 fiidnimo soo gali doona waayahay wararka kale waxaa kamid ah wasiiro ka tirsan Somaliland oo u socday Israa'iil ayaa iska xaadiriyay jigjiga halkaas oo ay doonayeen in diyaarad ka raacaan kadib Addis Ababa tagaan Addis Ababa ay ka sii baxaan qaab shorti kala asaatay xukuumadda madaxweyne markaasi Cabdi Maxamed Cumar ayaa waxa ay Mustafa Maxamed Cumar leh ayaa waxa ay markaasi samaysay in dadkaasi is hortaagto u diido inay halkan ka safraan u dambeyntii waxa la sheegay iyagoo baabuurtoodii wata inay xadka wajaale ka gudbeen oo dib u laabteen Somaliland waxa ay luminaysaa laba gobol oo waaweyn oo min Jigjiga ilaa Djibouti maadaama Cirro talaabada uu qaaday ay xitaa dhaliilsan yihiin maamulka dawladda deegaanka Soomaalida iyo dawladda Jamhuuriyadda Djibouti ee Mudane Ismaaciil Umar Geele uu hogaamiyo dhamaantoodna waxa ay u arkaan xaaladdan inay tahay xaalad ka badbadisa oo xaalad jahwareer gelin karta gobolka oo dhan haddii maanta Somaliland goonigoostii ku dhawaaqdo Israa'iil ay aqoonsi ka doorato haddaba wasiiradani lama sheegin balse waxaa la hubaa inuu ku jiray wasiirka arrimaha gudaha iyo midka arrimaha dibadda ee maamulkaasi iyo 3 xildhibaan ayaa lii kuwaas oo doonayay airportka magaalada Jigjiga inay ka dhoofaan maxay uga dhoof waayeen kan Hargeysa iyo hay'adda Soomaaliya talaabo adag ay ka qaaday diyaaradaha dalkeeda soo galiyay iyo waxa markaasi ka baxay waxa soo galiyay iyadoo taageero ka helaysa dawladda dalka Turkiga way qodobkaas kaga bixina qodobka ugu dambeeyay Mareykanka ayaa go'aan cad ka qaatay xiriir ay la sameystaan Somaliland wararkii ugu dambeeyay safiirka safaaradda dawladda dalka Mareykanka ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuu sheegay qorshahaysan ugu jiraan aqoonsi hadda iyo mid mustaqbalka ah labadaba nooguma jirto sidaas daraadeed waxa qorshaha iyagu uu yahay Soomaali mid ah inaan la macaamilno Soomaali mid ah inaan la dadaalno Soomaali mid inaan garab istaagno safiirku waxa uu sheegay in been ay tahay warar Twitter been oo loo soo baahinayay maalmahan ama barta X lagu sii deynayay kuwaas oo lagu muujiyay magaca safaaradda Muqdisho asaatay markii dambe waa uu diiday wuxuu sheegay in arintaas ay tahay been iyo meel ka dhac wax ku ah safaaradda dawladda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya intaasaan kusoo koobiyay qaybta saddexaad wararkii caalamka arrimaha Iiraan iyo waliba Mareykanka oo meel adag maraya ayaa soo socda soo dhawaada